السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري وهذا صاحبي. دراسة ayaa sheegaysa inay maskaxdeenu awood u leedahay inay xifdiso in ka badan 2.5 petabytes oo macluumaad ah, taas oo u dhiganta qiyaastii in ka badan macluumaadka ku jirta 3 milyan oo saacadood oo video YouTube ah. Si aad si waxtar leh ugu isticmaasho awooddaas marka aad waxbarashada ku jirto, waxaan kula wadaagi doonaa talooyin waxbarasheed oo ku dhisan cilmi baaris, isla markaana ay ku taliyeen khibrada waxbarashada ee ku soo dhawaada mawduuceena maanta. soo dhawaada mar kale. magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. talada koowaad: ogow qaab waxbarasheedkaaga. qof kasta wuxuu wax u bartaa si ka duwan dadka kale. dadka qaar waxay si fiican wax uga bartaan dhageysiga, halka qaar kalena ay yihiin kuwa aragga wax ku barta. laakiin waxaa kaloo jira dad badan oo wax ku barta iyagoo isticmaalaya labadii qaab ee aan soo sheegnay oo wada jira. waxay ahaataba, adiga garo qaabkaaga waxbarasheed, sida ugu fiican ee aad wax ku baran karto iyo xitaa waqtiga kugu habboon. aqoonsashada qaabkaaga waxbarasho ayaa kaa caawin doonta inaad kor u qaaddo fahamkaaga waxbarashada. qodobka labaad: hurdada wanaagsan ee habeenkii. hurdada ayaa muhiim u ah kaydinta macluumaadka cusub. daraasad ay samaysay jaamacadda Harvard ayaa muujinaysa in ardayda hesho hurdada fiican habeenkii ay 35% kaga wanaagsan yihiin xusuusta iyo kaydka kuwa aanan helin hurdada wanaagsan. marka isku day inaad hesho hurdo kugu filan si aad heer uga gaarto waxbarashadaada. qodobka saddexaad: isticmaal farsamada Pomodoro technique waa xeelad aad waqtigaaga ku maareynayso adigoo waqtigaaga u qaybinaya qaybo yaryar. tusaale 25 daqiiqo halkii mar, kadib 25kaas daqiiqo qaado nasiino 5 daqiiqo ah, kadib ku noqo hawshaadii. haddii aad ugu yaraan 3 ama 4 jeer sidaas samaysidna, adiga oo aadan ku daalin kuna caajisin ayaad hawshii dhammaynaysaa. tusaale ahaan, marka aad wax akhrinaysid, kaliya ku buuxso gambalaalkaaga 25 daqiiqo. marka uu gambalaalku kugu dhawaaqo, jooji akhriska, qaado nasiino 5 daqiiqo ah. haddii aad rabto inaad dib ugu laabato akhriska, mar kale ku buuxso gambalaalka 25 daqiiqo. markay dhammaatana, sidoo kale nasiino 5 daqiiqo ah qaado. nasiinadaas yaryar ee u dhaxaysa daqiiqadahaas dheer ee aad wax akhrinaysid waxay kuu sahlaysaa inaadan ku caajisin akhriska, kuna dhiirato inaad wax badan akhriso. farsamadan waa xeelad cajiib ah, runtiina waxtar u leh qof walba oo hawl muddo soconaysa qabanayo. waxayna u baahan tahay keligeed mawduuc gaar ah. insha Allah haddii uu waqtiga ii saamaxana, muuqaal ayaan ka soo samayn doonaa. qodobka afraad: waxa adag ka bilow. mar walba oo aad hawl qabanayso, ka bilow hawlaha kugu adag, kuna bixi tamarta iyo firfircoonidaada. tusaale, waxaad rabtaa inaad akhriso 3 maado. mid ka mid ah maadooyinkaas ayaa aad kugu adag, iyada ka bilow akhriska. kadib waxaad dareemaysaa fudayd iyo in maadooyinka ku dhiman aysan adkayn kuna fududaan doonaan. qodobka shanaad: 30% baro, 70% akhri oo ku celceli. barashada ama akhriska hore ee cashirka ama mawduuca waxa ka saameyn badan ku celcelinta, waayo qaybta maskaxdeena u qaabilsan xifdiga iyo kaydka sida kaliya ee waxay ku galaan waa practice-ka ama ku celcelinta. tusaale, haddii aad haysatid 1 saac isla markaana aad rabto inaad ku baratid cashir ama mawduuc, 20 daqiiqo ku baro mawduuca, 40 daqiiqo ee soo hartayna akhri oo ku celceli mawduuca. qodobka ugu dambeeya: istijaabin joogto ah. marka aad barato cashirka, waxaad iska qaadi kartaa tijaabo, taas oo aad ku ogaan kartid heerka fahamkaaga. istijaabintu 2 faa'iido ay leedahay. waa tan koowaad, waxaad ogaanaysaa in mawduuca aad fahamtay iyo in kale. haddii aadan fahmin mawduuca, waxay fursad kuu siinaysaa inaad dib ugu laabato. haddii aad fahamtayna, farxad iyo dhiirigelin ayay kuu tahay. saaxiibayaal, mawduuceena maanta intaas ayuu ku egyahay. inta aan ku kulmi doono mawduuceena xiga, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.